laba sanado ka hortow ayaa waxa noo yimi inamo ka yimi tuulo noo dhow ayaa masaajidka waxa wada Siciidow waxaanu iibsanaynaa kaniisadaas waxay noqonaysaa masaajidkii ugu horeeyay magaaladeeda laga dhiso nacaaw waxaan leenahay marka conference baa noo yimaadaan 12,000 oo qof conference kiibaanu okay conference ka ayaa idinka sameeynaa fundraise sida uu iibsataan kaniisadan jamacada tabarrucaad baan idin sameeynaa waxa dhacay marka gaalada haddii ogaadaan ina kaniisadu uu iibsanayo ay iibsanayaan dad muslimiini nagama iibinayaan waxaanu sameeynaa waxa la yiraahdo private sale waa maxay qofka wax ka iibsanayo garan meesida laakiin waxa la macaamilaysa qofkii simsaarka ahaa kaasuma la macaamilaysa asaguna kaasuma la macaamilaya umaanu sheegin inaanu muslimiin nahay magac qof baanu ku iibsanay magacii baan waxa magac generic u ahaa kaniisadii baan lacagtu ururinay waanu iibsanay wadaadadii baa yiri jazakallahu khair wadigii nacaawiye waxaanu furaynaa kaniisadii baanu masaajid u bedelay korooskii baanu ka jabinay koraasidii baanu qaadnay kaarbad cusub baanu dhignay meelihii weysadaan u sameeynay jimcahan baa iftitaaxiyadii aanu furaynaa masaajidkii khudbadada ku qoran waan soo xaadiri magaalada marka magaalada waa masaajidkii ugu horeeyay waanu nimi waanu dadkii baanu tukinay salaadii marka laga baxay ayaa nin cad ba halkaas soo fadhiistay nin cad ayaa halkaas fadhiistay xagga ugu dambeeyay fadhiyo koonaha bidix masaajidka fadhiya ninkani waxa weeye waa baadarigii kaniisada iibiyay uu murugaysan yahay waayo isagu muu ogeyn in muslimiin iibsanayaan in meeshan muslimiin iibsanayso muu ogeyn wuu fadhiistay wuuna sugay markaasuu yiri hebel I'm the pastor of the church waxaan haa ninkii kaniisada baadarigii kaniisada baan ahaa waan iska fadhiiso waan u sheekeynay waxaan kaniisadan dadkii maxaad u iibisay wuxuu waxaan u iibinay dadkii ku tukan lahaa memberskii oo dhan in yar mooyaane waxay tageen Afrika waa Afrika maxay ka dooneen dadka jooga Afrika ayay kristaantiga ka soo shaqeeyay ay kristaantiga barayaan buu yiri warka waa mubashiriin dadkan kaniisada kiisan kuma ogin markaasaan ku oo Soomaali may tageen waaba uhudu kale halka joogaan ma weeyba Soomaaliya oo yaydin geeyban ku Soomaaliya wuxuu nation wuxuu United Nation kan raacna United Nation ka ayaa kuwan NGOs ka is qora ayaan ka wada shaqeynaayo kuwaasana la